Bismillaah. Assalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, hadba kaadin tahay isku soo noqod wanaagsan. Sala wada socno horaantii bishani aan ku guda jirnay October bisha 10aad shanteedii waxaa soo baxay Windows 11. Dhammaadkii bishii toddobaad ayay ahayd marka ugu horreysay Windows 11 uu soo baxay, laakiin kaasi waxa uu ahaa mid test ah oo beta version, yacni mid aan stable ahayn. Laakiin sida officialka wuxuu soo baxay shantii bishii 10aad oo ah bisha aan ku guda jirno. Sidoo kale markii uu soo baxay Windows 10 shirkadda Microsoft waxa ay shaacisay Windows 10 inuu ahaa doono midka ugu dambeeyay, yacni mid ka dambeeya uusan soo bixi doonin oo kaliya isaga horumarin lagu sii samayn doono. Laakiin isbeddelka xawaaraha sare ee tiknoolajiyada ku socota awgeed taasi waa ay socon waysay oo waqtigii lagu guda jiray koronihii caqabado badan ayay la kulmeen dadka markii la dhahay stay at home, work from home markii la dhahay. Taasi darteed waxay noqotay in Windows cusub la soo saaro. In badan Windows 10 dadka waa lagu kala raaci doonaaday. Qaar waxa ay dhaheen waa just a fancy look. Qaar waxa ay dhaheen shirkadda Microsoft UI iyo UX ayay muhiimad ay diiraddiiba ay siisay. Qaarna waxa ay dhaheen Apple ayuu u ekaaday oo Mac OS. Laakiin anaga muhiimadeena taasi ma ahan. Waxaan u soconnaa hadduu alla ka raali noqdo su'aalo badan uu dhaliyay Windows 11 inaan muuqaalkeenan aan ku falanqeyno insha Allah. Haddii aad isweydiisay mid ka mid ah su'aalahani ama qaar ka mid ah muuqaalkani ayaan jawaab ugu raadin doonaa. Sidoo kalena ha iloowin inaad la wadaagtid asxaabtaada kale. In badan dadku waxaa isaga qasan update iyo upgrade. Bal tusaalooyinka aan la fiiri. Waxaad isticmaashaa oo laga yaabaa Windows 10. Windows 10 mar walba waxaa soo baxa fiijiro dheer security ahaadan ama waxyaabo kale ha ahaadaan. Ama telefoonkaada waxyaabo dheer ayaa soo baxa. Kadibna kombiyuutarkaada ama telefoonkaada wuxuu ku weydiiyaa update samee, yacni ku soo darso fiijiradaasi. Marka update waa in aad ku soo darsatid fiijiro cusub ee gadaal ka soo baxay. Upgrade asna tusaalahan ila fiiri. Waxaa laga yaabaa inaad isticmaashid Windows 10, laakiin Windows 10 wuxuu leeyahay version kala duwan sida Home, Pro oo Professional iyo Enterprise. Adigoo isticmaalaya Home inaad u wareegtid Enterprise ama Professional, ama adigoo isticmaalaya Windows 10 inaad ka guurtid ee aad u wareegtid 11 waa upgrade. Yacni upgrade wuxuu noqonayaa inaad ka wareegtid meel ee aad u wareegtid mid kale oo cusub. Software kasta ama application kasta ee soo baxaya ama aad isticmaashid oo hore u soo baxay waxa uu maraa 3 marxaladood. Marxaladda koowaad waxaa loo yaqaanaa dev channel, beta channel waa mid labaad, mid saddexaadna waa release channel. Marka waa maxay farqiga u dhexeeya saddexdaasi? Dev channel ama development channel waa marxaladda koowaad. Waa marka tiimkii project-gani sameynaya ama software ahaada ama application ahaada ay gacanta ku hayaan, ay tijaabinayaan oo weli aan la soo fasixin. Waxaa loo yaqaanaa development channel. Waa ana development kaasi. Beta version software kaas ama application kaasi waxa uu leeyahay group qofkii raban uu ku biiri karo. Marka inta public aan loo soo fasixin, waxaa la sameeyaa dadkaasi ayaa loo fasaxaa si ay u tijaabiyaan, feedbackna ay ugu celiyaan. Kaasina waxaa loo yaqaanaa marxaladda labaad ah beta version. Waana Windowskii soo baxay bishii 7aad camal. Marxaladda ugu dambeysa waa release channel oo ah markii si toos ah loo soo fasaxa oo qof walba uu la tegi kara. Feedback iyo waxyaabihii baagiska yaraa ama ciladihii yar ee soo baxay la soo dhammaystiray, la soo xaliyay oo si toos ah loo soo fasaxay oo marxaladda saddexaad waana release. Windows 11 wuxuu la yimid requirements fara badan oo dhaliyaan su'aalo fara badan oo in badan wax iska weydiiyay, yacni system requirements uu u baahan yahay. Haddaba seed ku ogaan kartaa haddii kombiyuutarkaada requirementigaasi uu ka soo baxayo iyo haddii kale. Laba qaab ayaa jirta, labadaba waan idin tusayaa insha Allah. Qaabka koowaad waa si manual ah adig inaad u jeegiraysid. Waxaad ku dhufataa iconka start iconka, kadibna setting ku soo dhufo. Kadibna waxaad ka soo gashaa update and security. Halkan waxaad ku arki kartaa dhanka midig check hardware requirements. Haddii aad ku dhufatid wuxuu si toos ah kuu geynayaa website-ka shirkadda Microsoft. Kadibna waxaad ku dhufataa halka ay ku qoran tahay C specification. Waxaad halkaasi ka arki kartaa requirementiga lagaaga baahan yahay sida processorka, RAM-ka, system requirementiga, TBM oo display-ga,
internetka iyo waxyaabahaasi kale oo one by one waad u jeeganayn kartaa. laakiin waxaa jirta qaab ka fudud oo aad ku ogaan kartid. Shirkadda Microsoft si aadan waxaas iyo wadiiqooyinkaasi dheer aadan u soo marin, waxay samaysay application oo si automatic ah isaga u jeegaraynaya haddii qualified aad tahay iyo haddii kale. Applicationkani PC Health Check Up ay samaysay shirkadda Microsoft. Marka aad la soo degtid install aad dahdid uu soo kaca, kadib waxaad ku dhufanaysaa halka ay kugu qoran tahay Check Now. isaga ayaana kuu sheegi doona haddii kombiyuutarkaada Windows 11 uu diyaar u yahay in lagu shubo iyo haddii kale. kadibna waxaad kusii dhifan kartaa haddii warbixin kale inaad sii ogaatid aad rabtid see all results oo resultiga iskaankaadii dhan in lagu soo bandhiga ama specificationka ayadana waad arki kartaa. insha allah linkigiisa iyo linki requirementina hoos ayaan soo dhigi doonaa. waxaa ayadana jirta in badan in isweydiiyey sidaad ku heli kartaa Windows 11. haddii aad isticmaalaysid Windows sax ahaa oo kombiyuutarkaada lagu soo gaday ama mid adiga aad gadatay product ID sax aad haysatid, uma baahnid inaad ka walwashid. shirkadda Microsoft waxa ay sheegtay ilaa iyo horaantii sanadka dambe, yacni 2022 in kombiyuutarada kala duwan upgrade-kooda uu soo bixi doono. yacni hal mar ma la soo wada saarin Windows 11 ee kombiyuutarada kala duwan, midba mar ayuu usoo bixi doonaa. haddaba ayadana marka waxaa la isweydiin karaa sideed ku ogaan kartaa kombiyuutarkaada haddii Windows 11 uu usoo baxay haddii kale sideed ku ogaan kartaa. way fududahay. halkii hadda maad kusoo laabanaysaa start icon ama setting ayaad ku dhufanaysaa, ama halka search ood ku qori kartaa update. kadibna waxaad ku dhufanaysaa update and security. halkan isaga ayaa kuu sheegi doona haddii Windows 11 uu kusoo baxay haddii kale, oo halkan ayaad ka ogaan kartaa. ma jiraa qaabab kale aad ku heli kartid Windows 11 haddii kombiyuutarkaada uu support gareynaynin, yacni requirement uu kusoo bixi waaye ama update uusan weli kusoo bixin? haa, waa jirtaa qaab kale oo alternative way ayaa jirta. waxaad samaynaysaa kaliya inaad soo geshid, insha allah linka hoos ayaan soo dhigi doonaa, linkigana aad soo geshid ama URL-kani. kadibna waxaad arki kartaa halkan inaad si toos aad ula degi kartid ISO fileska Windows 11. waana 3 qaab. midda koowaad inaad aad u install garaysid through assistant, waana mid ugu fiican ee aan kula talin lahaa. qaabka labaad waa inaad la degtid Windows 11 installation media oo flash iyo waxyaabahaas haddii aad kula degaysid ama DVD. iyo qaabka saddexaad oo ah disk image inaad la degtid. saddexaasba waad samayn kartaa kadibna aad toos u install garaysatid. laakiin haddii aad qaabkan ugu shubatid, waxaa laga yaabaa in kombiyuutarkaada cillado ama waxyaabo kale aad la kulantid, yacni maadaama wadiiqadii saxdeed aadan marin in requirements kombiyuutarkaada uu kasoo bixi waayo, sidaas darteedna ay dhacdo crash. waxaa kaloo isweydiinaysaa marka aad u wareegaysid Windows 11 oo aad ka guuraysid Windows 10, daatadaada ama xogtaada maxaa ku dhici kara? haddii aad martid wadiiqada saxda ah oo Windows 11 marka uu kusoo bax aad install garaysanaysid, sida u badan daatadaada waxba kuma dhici doonaan oo si toos ah ayaa Windows 11 kaada loo keeni doonaa. laakiin mar waliba meesha 1% risk aad ka dareentid iska ilaali, yacni daatadaada backup ka samaysa marka horeba. waxaa kaloo isweydiin karaa oo dadka in badan ku dhacda marka software ay ka wareegaan software kale ay u wareegaan in uu anfici waayo ayna isdhahaan softwarekaadii hore isaga laabo. haddaba Windows 11 marka aad ku shubatid kadib ma dhici kartaa inaad usoo laabatid, ama jirtaa qaab aad ugu soo laaban kartid haddii uu ku anfaci waayo Windows 10 kaada aad usoo laaban kartid. haddii aad ugu shubatid wadiiqadii saxda ahayd oo upgrade marka uu kusoo baxay aad install garaysatay, shirkadda Microsoft waxay sheegtay 10 maalin gudahood inaad fursad aad u haysatid si aad ugu soo laabatid Windows 10. yacni haddii aad rabtid wey daatadaada ama xogtaadana waxba aysan ku dhici doonin oo haddana si toos ah lagugu soo celin doono. haddii 10kaasi maalin kadib aad u baahatid inaad soo noqotidna, aad u baahan tahay daatadaada inaad backup aad ka qaadatid kadibna clean installation aad samaysid, yacni kombiyuutarkaada dhan aad dhaqdid Windows 10 dib aad ugu shubatid haddii aad rabtid weye. waxaa kaloo la isweydiin karaa Windows 10 maxaa ku dhici doono, yacni ma sii shaqayn doonaa ilaa se goormaa? shirkadda Microsoft waxaa shaacisay Windows 10 inaysan waxba iska bedeli doonin oo support iyo update-kiisa uu socon doono ilaa laga gaarayo October 2025, taasoo ka dhigan 4 sano haddii aadan rabin inaad wareegtid Windows 11. muddo 4 sano ah inaad sii isticmaali kartid Windows 10 kaada
isagoon waxba iska bedelin, yacni sidiis ahaan doono. Laakiin waxa ka dambeeya October 2025 haddii kombiyuutarkaada uu ku install gareysnaa, horey waad u sii isticmaali kartaa ama website appkiisa aad heshid, laakiin ma heli doontid feature dheer ah iyo security. yacni shirkadda Microsoft supportkii ay siinaysay ayay gebi ahaanba joojin doontaa marka la gaaro October 2025. intaas ayaan jeclaystay inaan muuqaalkan idinkula wadaago. wixii su'aalaha dheeri aad qabtaan waad noo soo weydiin kartaan sidii caadiga ahaydba. intaan markale dib ugu kulmi doono. Assalaamu calaykum.